halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 16 bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6 barkii aroornimo Washingtonna waa 12 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did. malaayiin qof oo Kanadiyaan ah ayaa waayay shaqadooda. Dowlad ahaan waxaynu dooranay bilowgiiba inaanu caawino malaayiintaasi qof ee Kanadiyaanka ah. Waxaynu u baahnayn in dadka Kanadiyaanka ah aan si degdeg ah u caawino, waana midaasi ta aanu samaynay. kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo ka jawaabayay eedayn dowladdiisa loo soo jeediyay oo ku aadan sida ay u maamuleen lacagihii taakulaynta ee dadka la siinayay. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena saakana waxaa ka mid ah Galmudug oo ka warantay colaad beelad oo deegaanadaasi ka taagan. muran ka dhashay gabar Talyaani ah oo lagu afduubtay Soomaaliya oo sheegtay inay soo islaantay iyo qodobo kale. marka hore warkii caalamka waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan. xanuunka corona ayaa u muuqda mid si weyn ugu sii fidaya dunida muslimka ah, gaar ahaan dalka boqortooyada Sacuudiga oo tirada dadka laga helay cudurkaasi ay kor u dhaaftay 2,000 oo qof, iyada oo dhimashaduna ay ku dhowdahay 300 oo qof. Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in gabi ahaanba la xayiri doono isku socodka dadweynaha maalmaha ciidda ee nagu soo aadan. wasiirkii caafimaadka ee dalka Brazil ayaa iscasilay. Iscasilaadda wasiirkan ayaa imanaysa isagoo xilkan hayay in ka yar muddo 1 bil ah. wasiirkan ayaa sheegay in uu iska casilay xilka kadib markii loo maaran waayay ismaandhaaf ka dhashay qaabka uu madaxweynaha dalkaasi Brazil ula tacaalayo cudurka COVID-19 ama coronavirus. wasiirka ayaa sheegay inuu aad uga soo horjeedo go'aanka uu madaxweynaha dalka Brazil ku fasaxay in la furo goobaha timajarayaasha ah iyo qurxinta timaha iyo xarumaha jimicsiga. mahadsanid Xuseen. wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac ayaa VOA-da uga waramay iska horimaad ka dhacay deegaanada qalanqa leh oo hoos taga degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, kaasoo sababay dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 8 kale oo dhammaan ka mid ahaa dhinacyadii isku dhaca uu u dhaxeeyay. ugu horeyna wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa weydiiyey wasiirka waxa uu dagaalkaasi salka ku hayay. bisha shanteedii waxaa jira beelo wada dega ereyadaas oo ay dhex mareen. halkaana waxaa ka dhacay dhibaatooyin dil iyo qax iyo dhaawacyo intaba meesha ay ka dhaceen. markaa kabacdina ciidamada amniga baa dhex galay ee dowladda Mudug ee isku dayay inay muxuu ahaa wixii markii hore dhacay wax ka dambeeya ayna meeshii ka dhicinin. dowlad ahaan markaa markii arrintaas laga warhelayna dowladdu madaxweynuhu wuxuu u magacaabay golo wasiir ah oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayay. waxaan kulamo kala duwan la sameynay beelihii ay shaqaaqadaasu ay dhex martay. waxaana kula kulannay meelahan xanan buuro qalanqale meel la yidhaahdo oo isla deegaankaas ku dhow. ugu dambeynna waxaan maanta ku kulannay magaalada Dhuusamareeb ee magaala madaxda dowlad goboleedka Galmudug. waxyaabaha runtii laysku hayo waxay ahaayeen ugu culus waxay ahaayeen dhulka daaqa ahaa oo dadka qaarkii ay doonayeen inay baraago ay ka sameeyaan. waxay abuureen marka baraagaha samayntoodu in dad badan oo ay ku dhintaan, dad badan oo inay barakacaan, in khilaaf joogta iyo amni darro ay ka abuuran tahay deegaamadaas.
deegaanadii waa tagteen xananbuure qalanqalle oo hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud odayaasha dhinacyadaa la kulanteen maxaa loogu baahday in dhuusamareeb kulan lagu qabto ma waxaa jira xoogaa isfaham waa ah oo beelihii dhexdoodii ah oo ku salaysan arrimihii baraagaha runtii 2 arrimood baa laga hadlayay markii kulankii koowaadba aanu la kulannay odayaasha mid wuxuu ahaa wixii dhacay sidii looga xaali lahaa oo dadkii ama la laayay ama dhaawac ahaa sidii dadkaas ay uga wada hadli lahaayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa in la xaqiijiyo deegaanka lagu dagaalamay iyo sida loogu dagaalamay iyo sababta loogu dagaalamay inaan dowlad ahaan wax ka ogaana markaasna aan go-aan ka soo saarno waxaan u hormarnay marka inaanu xaqiijino deegaanka lagu dagaalamay yaa hadda degan maxaa meesha ka jira sideedaba qalanqalo la yidhaahdo yaa degan hadda iyada lafteeda arrintaasaa dowlad ahaan aan u hormarnay waxaan ogaanay qalanqale meel cidlaa inay tahay 2 nin baa ku nool waxay ku leeyihin 2 baraagood iyo dhowr qol oo jiingad ah muddo badan oo hadda 5 iyo 10 sano 3 iyo 10 sano ay ku noolaayeen waxaa jira isku dayo kale oo dadka deegaanka degan oo u dhow ay doonayeen inay ku sii ballaariyaan oo baraago kale meeshaas ay uga sameeyaan bacdama way isku khilaafeen arrintaas qolo walba waxay doonaysay iyaga keligood inay baraaga ka sameeyaan aan qolada kaleeto ayna ka samaynin muddo dheer bay taagneed khilaafkaasu markii labaad oo gacanka hadal ka dhacana weeye oo dad ku dhinto ilaa 13 sano oo u dambeysay markaan ogaanay inaan baahi biyood meesha ka jirinin in dhibaatadu ay tahay arrintaas dadku ay doonayaan siyaasiyan inay dhul ku sii qaataan ama muxuu arrin qabaa'il arrintaas ay tahay oo qabiilaysan dowladdu waxay soo saartay si buuxda waxay go'aan u soo saartay dhammaanba galmudug in laga joojiyo baraaga aan sharci ahayn oo aan golaasho loo haynin in laga sameeyo guud ahaan galmudug gaar ahaan meelaha hadda wax ka jiraan oo shaqaaqooyin ka jiraan si buuxda ciidamada iyo kulli hay'adaha amniga waxaan uga amarnay in la joojiyo mudan wasiir maxay tahay muhiimadda deegaanka qalanqalle dadka xoolo dhaqatada uu u leeyahay aad baad u mahadsan tahay su-aasha waa su-aal fiican deegaankan qalanqalle wuxuu ku dhex yaalaa deegaan aad u fiican oo xoolo daaqsiga aad ugu fiican hareerihiisa dhinac kastaba waxaa ka xiga matooro hore loo qoday oo biyo laga cabo waxaa kaloo ka jira baraago badan oo isaga isla geesihiisa ah baa jira waktigii hore oo dowladdu ay burburisay caradan o dhan baraagana laguma jirinin ceelale ma jirinin dadka hadda ku dagaalamahaya meesha dadaan ahayn baana markaa baraagaha ka qotay oo dowladdii kacaanku ay horey u burburisay iyadoo markaa ilaalinaysay in daaqa ayna waxyeella soo gaarin muddadii marka dagaalkii ahliga aha uu jiray waxaa isbedelay deegaankii wax badan baa iska bedelay ceelal badan baa laga sameeyey baraago badan baa laga sameeyey wax la taaban karo oo run ah oo maanta qalanqalle meesha la yidhaahdo loogu dagaalamo ama dad ugu dhinto oo muhiima ma jiraan haba yaraatee subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dalka Yemen qaar ka tirsan Soomaali tahriibayaal iyo xoogsato kale ah oo muddo lagu hayay xabsiyo iyo xerooyin ku yaala gobolka Sacda iyo Al-Jawf ee dalka Yemen ayaa gaaray magaalada Cadan ee dalkaasi Soomaalidan oo qaarkood VOA-du ay la hadashay ayaa beeniyay war ay horey u shaaciyeen xuutiyiinta Yemen oo ahaa in boqolaalkan ruux laga soo tarxiilay dalka Sacuudiga dadkan waxay sheegeen in laga qabqabtay gudaha dalka Yemen xaalad dhinaca nolosha oo aad u adag ayaa hadda ku haysata magaalada Cadan qaarkoodna waa ay xanuunsan yihiin qaarna dhaawacyo rasaas iyo shilal isugu jira ay qabaan waxaana ay hadda hortuban yihiin xafiiska hay'adda UNHCR ee magaalada Cadan Jacfar Kuuka iyo qadka telefoonka ku wareystay mid kamid ah Soomaalidaasi oo lagu magacaabo Ismaan Maxamed Xaashi niyo dhibaatadaanu ka cabanayno horta dhibaato badan baanu qabnaayo oo qoladii xagga xuutiyiinta ayna soo gaarsiiyeen dhac iyo dil iyo mataqaanaa dhibaato badan bay noo geysteen oo mataqaanaa iyo jeel iyo
in badanna jeelashay nagu hayeen oo wayna silciyeen. waayahay halkee laydinku hayey, halkeed ku xirnaydeen? waxaana lagu hayay dhowr magaalay nagu qabteen oo nalagu xidhay jeelal badan bayna soo mariyeen, meel la yidhahdo aljoof iyo mataqaanaa sacda, intaaba wayna soo mariyeen oo halkaasay nagu xidheen. goormaa laydin qabtay? kadibna rag baa 3 bilood ku jiray, badna usbuuciyay ku jireen, bar 10 ishay ku jireen. dadku midba meel baa laga soo qabanayay. tirada Soomaalidu waa imisa? 300 baa ku dhowey. halkeed u socoteen markii laydin qabanayay? niyow dadku isku mid ma ahayn, badh xagga iyo Sacuudiga u socdeen, badh dad waxay iska xamaasho oo mataqaanaa yoomiye iyo beeraha ka shaqaystay ahaayeen. ragna waxay ahaayeenba rag caylooyin oo xasaaslo sanciya dhulkaa degan oo meelaha dee reerahooda ugu shaqo tagay bay ahaayeen. waad soo lugayseen baa aad ii sheegtay. halkeebaad lugta ka soo bilowdeen, halkeebaadse ku timaadeen? lugta waxaanu ka soo bilownay aljoof, meel la yidhaahdo oo mataqaanaa aljoof oo bartamaha Yemen ka bilownay ilaa Sacdaanu ku gaadhnay. Sacdaana laga soo qabtay, jeel baana la geliyey, halkaanu ka soo lugaynay baana lagu celiyey. kadib ba haddana dibli haddana noo sii qaaday, Sancaana la soo mariyey, meesha la yidhaha baana la keenay, halkaasaana lagu daadiyey oo mataqaanaa labada qolo is haya dhexdooda. sideed cadan ku soo gaarteen hadda? rag baa lu ku yimid oo 5 maalmood soo lugeynayay. ragna dee dadka shacabka unbaa ilaahay u sakhiray oo baabuurta kusoo saaciiday oo soo qaadqaadayay. xuutiyiintu waxay warbaahinta u sheegeen in 800 oo qof oo Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Sacuudiga aljawf ay ku hayaan. ma kuwabaad ahaydeen adinku? waxaasi waa been. wax Sacuudi laga soo tarxiilay hal nafar oo Sacuudi laga keenay kuma jireen, been weeye. dadkani waa dad Yemen dhex joogay oo ay xanuuno iyo balaayo uuna ay ku caayayaan oo waxaa qabtaan karoona oo qabtaan, waxa ay subayaan oo saqiir iyo kabiirba. kii kaasoo horbaxaa dukaamadii xataa noo diideen inaan ka iibsano biyo, hulaaladii bay noo diideen cuntada inaan ka iibsano. wax kasta oonu u baahannahay oo naftayda u baahan tahay inaan meel ka qaadana waa la diidayaa. naftii ilaahay baa la qabatay xataa. ma laydin karantiile? waana la karantiile. ha cuntada biyo aad cabto oo abaha raadan biyo aad cabto marka lagu diida maxaa ka xuno kaloo la samayn lahaa? marka intaad halkaa ku jirteen wax idiin yimaada oo hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka socda ma jireen? wax noo yimiday iyo wax qofna gabadh nala soo hadashayba jirto oo Yemeniyad ah oo mataqaanaa bil dhan uu kalba been noo sheegaysa. waxaan idin soo diraya xataa looyar idin doodo idinka sii daaya. waxaasina waxba kama hirgelina, been bay noo sheegaysay. wax ka hirgalayna ma jiro oo cid noo timida ma jirto. ma rag keliya baad ahaydeen mise caruur iyo haweenna way idinku jireen? wax caruur iyo wax dumar inuga jiraan. rag baanu ahaayeen oo keliya. Soomaalida wax rag unbay ahaayeen. odayaal waaweyn baa laakiin nagu jira. rag ciyaalkoodii iyo caruurtoodii ay Sanca joogaan oo soo ooyayaan baa jira, oo Sanca intii lasoo dhexmariyay xataa ciyaalkoodii iyo dumarkoodii inay ku degaan loo diiday baa jira. cadan baanu ugu nimid dad naga soo horreeyey oo dumar iyo ay ku jiraan. cadan baanu ugu nimid oo naga soo horreeyey baa jira. marka ma iskood bay idiin sii daayeen mise siyaabo kale baad usoo baxsateen? iyagaana soo tarxiilay oo meeshii markay nagu hayn kari waayeen ay jeelashii ka buuxsameen ayaa si jeelashu dad kale ay u geliyaan bay soo faaruqiyeen. tarxiil bay nagu keeneen. hadda imika tira 5 jeer abaa saxarana lagu daadiyey. tira 5 jeer oo meesha ay isku hayaan dhinaca iyo rubax khaaliga oo cidla abay nagu daadiyeen oo la yidhi socdaynta qoriya dabadana laga qabtay. marka waanu u badheeri weynay kulaylka iyo saxaraha aan biyo iyo baad midna lahayn. waanu u badheeri weynay. markayna dejiyaan ay lugeeya yidhahdaan baa intaan hor dhaqaaqno baa markii gaarigoodu noqdo yaan dib usoo noqonayno, kasoo daba noqonayna. waayo haddaan hore u socono nafta way naga baxaysaa. hadda cadan baad ku sugan tihiin. dhibaatada aad hadda cadan ku qabtaan ee aad ka sheeganaysaanna waa noocee? waxay tahay anagu tirada iyadu waa 300 oo qof weeyaan. dhibaatada aanu sheeganayna waxa weeyaan hoy la-aan. qof jeebkiisa biyo ka iibsan karaa naguma jiro. cidna qaabishay oo mataqaanaa meelna geysay ama wax noo qabatayna ma jirto. etoobiyaankii iyaga waa la qaabilay oo guryaha la geeyey oo mataqaanaa iyaga waaba la qaabilay, laakiin yaa qaabilay etoobiyaanka? dowladda kaxayso meel bay geysay. marka anaga xataa halkeebaad ku hoyataan adinka hadda? halkeed ku hoyataan? gidaarada nu seexanaa oo kulaylkaad aragtay. cadan waxaa ku taalla oo ku shaqaysa safaaradii Soomaaliya ee dalka Yemen. ma la xiriirteen iyaguse ma idinla soo xiriireen? maya, annaguna lamaanaan xiriirin. welina cid nala soo xiriirtay ma jirto. leanno dad rafaadsan baanu nahay oo safaaradii iyo adduunkii halkii UN taban hor jiifnaa oo waxa weeye wax ay noo qabteen ma jirto aan ahayn bidaaqada ay dad siiyeen oo ay yidhahdeen bidaaqadihii laajiga ahaa ayaa dadka barhkood weli qaateen. kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Xaashi oo ka mid ah Soomaali ku dhibaataysan dalka Yemen oo u waramayay waryaheena Jacfar Kuukay.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa eedayn ku aadan qaabka ay dowladdu u maaraynayso lacagaha gurmadka dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 kala kulmaya mucaaradka. Lacagaha taageerada ee dowladda ayaa la sheegay in dadka qaar ay si khaldan uga faa'iidaysteen. Faafahinta warkan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji. kulan ay lahaayeen guddiga gaarka ee COVID-19 ee dalkan Canada ayaa ra-iisul wasaare Justin Trudeau waxa wax laga weydiiyey in dowladdiisu ay fartay shaqaalaha inay siiyaan cid walba oo soo dalbata lacagta $2,000 ah bishii oo loogu talagalay in lagu taageero dadka uu saameeyey coronavirus. xildhibaan Dan Albas oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee midigta fog ayaa dhowr jeer ra-iisul wasaaraha weydiiyey su-aasha ah in dowladdu ay sii waday bixinta lacagta gurmadka ah iyadoo ay jirto suuragalnimada in dadka qaar ay si qaldan ku qaadanayeen lacagtaasi. ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa xusay in baahida jirta awgeed aysan suuragal ahayn sugidda baaritaano lagu xaqiijinayo cidda sida saxda ah ku qaadanaysa lacagta iyo cidda kale. Millions of Canadians have lost their jobs. We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did. malaayiin qof oo Kanadiyaan ah ayaa waayay shaqadooda. Dowlad ahaan waxaynu dooranay bilowgiiba inaanu caawino malaayiintaasi qof ee Kanadiyaanka ah. waxaynu u baahnayn in dadka Kanadiyaanka ah aan si degdeg ah u caawino, waana midaasi ta aanu samaynay. haddii aynu weydiin lahayn shaqaalaha inay sameeyaan baaris ku saabsan qof kasta oo dalbanaya lacagta gurmadka degdega ah ilaa iyo hadda waynu sugi lahayn natiijada baaritaanadaasi. dadka lacagtaasi hadda ayay u baahan yihiin, waxaynu u baahnaayeen bishii hore markii aynu siinay. If we had asked the public service to perform background checks on everyone applying for the CERB, we'd still be waiting to get those checks out. And people needed that money. Now they needed that money last month when we delivered it. laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay in lasoo qaban doono cid walba oo si qaldan ku qaadatay lacagtaasi loogu talagalay dadka uu saameeyey COVID-19. We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences. waxaa jiri doona sharciyo adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi, waxayna ku yeelan doontaa saameyn adag. laakiin taasi ma ahayn muhiimaddeena. muhiimaddeenu waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. sharciyada kuwa sida khaldan ku qaatay lacagtana waxay imaan doonaan bilooyinka soo socda. But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months. dowladdu weli ma aysan sheegin ciqaabta ay mutaysan karaan kuwa si qaldan ku qaata lacagta lagu taageerayo dadka uu saameeyey COVID-19 ama ku waayey shaqooyinkooda. balse Farxaan Cali Jimcaale oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha, xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa aaminsan in ay mutaysan karaan ciqaab isugu jirta xabsi iyo ganaax lacageed. caqabada qofkii ku takrifala arrintani waxaa ku dhici karta in la xirana way dhici kartaa, lacag aad uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa, ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa. waxaa kaloo jirta Xuseenow, wakaalada canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan oo waxay samaysaa sanad walba markii canshuuraha ay samaynayso lacag walba oo qofka Canada jooga soo gala waxay soo martaa iyada. haddaba waxay ogaanaysaa inkamkaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso, then caddayn cad ayayna u haysaa. qofkii ku takrifalana dhibaataa ka soo gaari karta. haddaba maxaa la gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si qaldan ku qaateen lacagta? waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu uu yahay magaalada Toronto. waxaan kula talin lahaa gaar ahaan communitygeenu inay ka waantoomaan waxyaalaha ay isugu sheekeeyaan been abuurka ku salaysan. maxaa lagu xallin karaa? waxaan anugu ku talinayaa in dadkaasi ay number 1 joojiyaan dalbashada ay lacagtaa dalbanayaan oo ay ugu bilaabato hadeertadan. wixii lacag si khaldan ku qaatayna dowladdu waxay proford garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dowladdu leedahay oo lacagtaa lagu soo celinayo intaan iyaga dowladdu warqad usoo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan lala soo xidhiidhin. in ka badan 7 milyan oo qof ayaa waayay shaqooyinkooda COVID-19 dartiis, kuwaas soo dalbaday lacagaha gargaarka ee dowladda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
kale ayaanu idin leenahay dhegaystayaal subax wanaagsan. dalka Talyaaniga waxaa ka taagan muran ku saabsan gabar u dhalatay dalkaasi oo ay kooxda Al-Shabaab ku afduubteen Kenya. gabadhan oo lagu magacaabo Silvia Romano ayaa toddobaadkii hore ku noqotay wadankeeda iyada oo xiran xijaabka islaamka isla markaana la baxday magaca Aisha qaadatayna diinta islaamka. arrintan ayaa sabab u noqotay in ay weeraraan kooxaha midigta fog ee islaamka necab ee Talyaaniga. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan wuxuu ka wareystay Sakariya Maxamed Cali oo ah suxufi ku nool Talyaaniga. waxa buga internetka iyo jaraa'idada wadanka Talyaaniga la isla dhaxmaray hadallo macnaha cambaareyn ah taasoo marka ka dambeysay markii ay wadanka Talyaaniga maalintii Axadda 10kii bisha May ay soo gashay gabar la yiraahdo Silvia Romano oo hadda lagu magacaabo Aisha Romano. waxay marka ay diidanayeen qaabkay u labisneed iyo xijaabka iyadu sidatay. waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin aad iyo aad wuxuusnimo ah isla markaana dacayado oo aan xad lahayn ay marka ay la socdeen iyadoo waliba ay imaaday xitaa in loo hanjabo gabadhii. maxay ku saleynayaan marka hanjabadaas? wallahi sida jirto xisbiyo waxaa ka jira wadankan Talyaaniga ee adag ee dhanka midigta ah waasoo asalkoodba cambaareeya dadka ajnabiga ama dad qof alla qofkii islaam ah. markii ay arkeen Silvia ama Aisha Romano oo xijaabkii qofka muslimka sita isla markaana faraxsan ay yiraahdeen qofkani ma ahayn qof dhibaato ku sugnaa. waxay kaloo marka ay isu dayeen xataa inay marka isticmaalaan hadallo aad iyo aad u xun isla markaana looga soo horjeedo qaabkay u labisneed iyo xijaabkeedii. marka laga soo tago dhanka mucaaradka ama xisbigan maylka adag ee wadanka Talyaaniga waxaa isa soo aftaraya xitaa ama soo baxaya xitaa hadallo muhiim ah isla markaana dhiirigelin u noqonaysa Aisha Romano taasoo ay ugu horeyso xitaa warbixintii oo bogga Twitterka uu ku qoray ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga oo ugu mahad celinayo macnaha qaabka ay u dhaqantay Silvia laftirkeeda. waayo ma ahayn qof qarsanaya in diinta islaamka ay soo gashay. waxa ay cadeysay ama ay qalbigeeda xitaa dadka u muujisay in ay ku qanacsan tahay xaaladeeda oo aysan macnaha jirin wax dhibaato ah oo ay tabanayso. shalayto waxay bogga Facebooka Silvia ku qortay hadallo ay dhahaysay ha xanaaqina si aad ii difaacdaan, waxaan ka soo gudbay xaalado xun. waxayna u mahad celisay dhammaan intii taageertay iyada oo sheegtay kolkii aan diyaaradda saarnaa waxaan ku fikirayay qaabka ay farxadeeda noqon doonto marka aan wadankayga ku soo laabto. waxaa kaloo maantan bogga internetka ee Facebooka ay ku qortay Allah ayaa mahad iska leh, waadna ku mahadsan tihiin oo sida wanaagsan aad ilama camiishteen maadaama ay soo baxayaan dad muslimiin ah oo wadankan Talyaaniga ka soo jeeda ama deganba kuwaasoo bogga La Luce News ku qoray in ay soo dhaweynayaan Silvia Romano ama Aisha Romano. waxaa kaloo jira xitaa imaamka wadankan Talyaaniga gaar ahaan magaalada Milano in asigu laftirkiisa uu invitation u diray isla markaana uu dhahay waqti alla waqtigii aad rabto inaad nala kulanto ama masaajidka aad timaado si aad dareenkaaga iyo warbixintaada macnaha aad noogu soo jeediso. waqti xaadirkan waxaa muuqata in Silvia ay nabad qabto wadankan Talyaaniga gaar ahaan ciidamada Carabinieriga loo yaqaano ayaa waxa ay u sameeyeen askar sugta ammaanka Aisha Romano maadaama ay soo baxeen hanjabaadyo iyo dad iyagu laftirkooda ku hubeysan dhagaxyo iyo dhalooyin aqalka ama xaafadda ay degan tahayna la tuuriyey si marka loo sugo ammaankeeda iyo nolosheeda. gabadhan iyadoo laftirkeeda wadankan Kenya u tagtay in ay u shaqeyso si volunteer ah ama mutadawacnimo ah. markii ay wadankan ku soo laabatay 18 bilood kadibna ay soo noqotay iyadoo qof muslim ah. marka dhanka siyaasadda xisbiyada mucaaradka laftirkooda waa loo jawaabay. waxaa xitaa soo baxaya xitaa qaar iyagu ka mid ah oo weydiisanaya in la cafiyo maadaama ay qaldameen isla markaana ay isticmaaleen hadallo macnaha aad iyo aad u foolxun isla markaana sii fogeynaysa xitaa qofka wadankan ka soo jeeda maadaama xeerka wadanka Talyaaniga u yaalo xeerka qodobka 3 kaasoo sheegaya qof alla qofkii diin kala qaata in ay qasab tahay in qofka la soo dhaweeyo isla markaana lagu ixtiraamo diintiisa wax dhibaato aanan loo geysan maadaama aysan wax dhibaato wadankan Talyaaniga aysan ku ahayn. warbaahinta Talyaanigu arrintan sidee uga hadashay? inta badan journalada marka localka loo eego sida Repubblica iyo Open Online iyo kuwa kaloo iyagu laftirkooda ugu caansan
dhowr shay ayay markaa isu dayeen inay ka hadlaan. kolka hore waxay ka sheekeeyeen markii la afduubay Sylvia ama laga kaxaystay waddanka Kenya 20 November 2018 iyadoo markaa ku sugnayd taasoo la yiraahdo Shakama kadibna la geeyay waddanka Soomaaliya. marka iyagu way ka hadleen, waxay isu dayeen horta inay marka hore ay ka sheekeeyaan qaabka ay wax u dhaceen xilligii la afduubtay, inta bilood ay xirnayd iyo waxyaabaha keeni kara qofka haddii waddan shisheeye la geeyo luqadiisa aan garanaynin in waxyaabo badan qofka ay kusoo darsi karaan. halka jaraa'idyada ama wargeysyada qaarkoodna ay isu dayeen in ay markaa anti islam oo kale in qofka macnaha attack lagu sameeyo maadaama uu diinta islaamka soo galay, iyo weliba hay-adaha u shaqeeya samafalka oo xisbiyada mucaaradka inta badan ay ka soo horjeedaan maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay howlo samafal ah. marka waa ay jiraan wajiyo kala gedisan oo jaraa'idyada ama wargeysyada waddanka Talyaaniga ay isticmaalayaan, balse saacadihii u dambeeyey waxaad u malaynaysaa in hadallada la isticmaalayo ay xoogaa wax iska bedelayso. maalinka ay soo degtay waddankan Talyaaniga waxaa la waraystay Aisha Romano iyadoo hadlaysay 4 saacadood. booliiska ama guddiga sirdoonka ee waddanka Talyaaniga u xil saaran ayaa waxa ay ka waraysteen xaaladeeda sida ay ahayd iyo dareenkeeda maskaxiin sida uu yahay. wargeysyada qaarkood marka waxay isu dayeen inay ka sheekeeyaan waraysiga laga qaaday Silvia Romano ama Aisha Romano marka ay soo gashay waddankan Talyaaniga, waasoo isu dayeen marka inay marmarsiyo u helaan diinta ay qaadatay maadaama ay tahay diin islaam ah. kaasi waxa uu ahaa Sakariya Maxamed Cali oo ah wariye ku nool Talyaaniga oo u waramaya Xuseen Barre Aadan. haatan dhegeystayaal aynu ku wada nasanno qasaa'idkan nabi amaanka ah. guud ahaana dhegaystayaal idaacaddeenii aroornimo waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waxaa isugu kaaya soo duway idaacadda Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.